bismillahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daawadayaasha dhegeystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida nagala socda. Halkani waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed oo Norway. waxaan idiin soo gudbinaynaa barnaamij gaar ah oo ku saabsan mudaaharaadyada xooggan oo dalkaasi Mareykanka ka dhacaya. Dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhacaya mudaaharaadyo aad u xooggan kuwa oo noqonaya mudaaharaadyadii ugu waaweynaa ee muddooyinka ka dhaca dalkaasi. Mudaharadayaasha ayaa kasoo horjeeda nidaamka uu hogaamiyey madaxweyne Donald Trump ka oo ay ku eedeynayaan inuu dhulka la galay dhaqaalihii dalkaasi iyo dunida. Donald Trump ayaa arbacadii lasoo dhaafay dunida kusoo rogay canshuur xad dhaaf ah. Dhammaan badeecooyinka kala duwan ee dalka Mareykanka loo iibgeeyo ayuu dul saareen canshuuro xad dhaaf ah kuwa oo culays dhaqaale ku keenay guud ahaan dunida iyo dalkaasi Mareykanka. Waxaa hoos u dhac baaxad weyn laga dareemayaa sarifka lacagaha kala duwan. Si taa lamidana waxaa hoos u dhacay dhammaan shirkadihii kala duwanaa iyo warshadihii wax soo saarka lahaa ee dalkaasi Mareykanka. Waxaa sidoo kale xoogeysanaya dhibaatooyinka dhaqaale ee dalkaasi soo wajahay. Si taa lamidana dowladda China ayaa ka jawaabtay canshuurtii xad dhaafka ahayd ee uu dul saaray dalkaasi Mareykanka. Waxa ayna iyadana kusoo rogtay canshuur la mid ah tii uu kusoo rogay Mareykanka oo ahayd 34%. Dunida ayaa la circiraysa dhaqaale xumo baahsan iyo sidoo kale ganacsiga iyo isu socodkii kala duwanaa ee badeecadaha ayaa waxaa soo wajahday culays kala duwan taasoo keentay in maciishadu ay kor u kacdo. Si taa lamidana nidaamkii maaliyadeed ee dunida uu dhulka galo. Mudaharadayaasha ayaa codsanaya in Donald Trump iyo Elon Musk oo labaduba ah nidaamiyaasha hogaamiyaha dalkaasi Mareykanka inay wax ka bedelaan dhabaha ay ku socdaan oo ay ku tilmaameen inuu yahay mid khaldan. Abaabulka mudaharadyadan ayaa waxaa lahaa in ka badan 150 urur oo dalkaasi ka dhisan kuwa oo xuquuqda dadka u dooda. Waxayna qorsheeyeen in ay mudaharaadyadani ka dhacaan in ka badan 1200 oo goobood oo dalkaasi Mareykanka ku taala. Magaalada Washington ee caasimadda dalkaasi Mareykanka oo uu ku yaalo aqalka cad ee looga arrimiyo dalkaasi ayay abaabulayaashu sheegeen in ay qorsheynayeen in ay mudaharaadyadaasi kasoo qayb galaan in ka badan 20,000 oo mudaharadayaal ah. Ha yeeshee bilowgii hore ee mudaharaadka ayaa waxaa isa soo xaadiriyey in ka badan 75,000 oo mudaharadayaal ah, taasoo muujinayso in dadweynaha dalkaasi Mareykanka ay dhibsadeen habka iyo siyaasadda uu madaxweyne Donald Trump wax ku wado. Guud ahaan gobolada iyo deegaanada kala duwan ee dalkaasi Mareykanka iyo mudaharaadyadu ka socdaan waxaana lagu dhaliilayaa habka ay wax u maamulayaan Donald Trump iyo saaxiibkiisa aadka ugu dhow waa ninka milyaneerka ah ee lagu magacaabo Elon Musk kuwa oo ay sheegeen dadweynaha inay kasoo horjeedaan qaabka iyo sistamka ay wax ku wadaan kaasoo dhaawacay dhaqaalihii dalka Mareykanka iyo dunida sidoo kalena dhibaato xooggan ku ah horu socodka dadweynaha dalkaasi iyo guud ahaan dunida. Mudaharadyadan ayaa la filayaa inay sii xoogeystaan oo ay kasii socdaan guud ahaan deegaanada iyo gobolada kala duwan ee dalkaasi. Lamana oga Donald Trump waxa uu arrintani ka bedeli doono. Madaxweyne Donald Trump oo maanta wax laga weydiiyey khasaaraha baaxadda weyn ee soo gaaray ayaa sheegay inaysan taasi dhib lahayn oo ay bilow tahay. Waxa uuna sheegay in ay dalka Mareykanka soo geli doonaan in ka badan 7 trilyan oo lacag ah. Waxaana dadweynaha ugu baaqay inay isdejiyaan oo dhaqaale xooggan uu Mareykanka soo geli doono ay si dhaqsana usoo kaba doonaan oo ay iyagu faa'iido qabaan. Ha yeeshee mudaharadayaasha iyo dadka abaabulka mudaharaadka leh iyo sidoo kale dadweynaha Mareykanka ayaa qaba in fikirkaasi uu yahay mid khaldan. Mudaharadyadan ayaa la filayaa in ay sii socdaan. Halkani waa Somali Voice Norway ama codka Soomaaliyeed ee Norway. waxaana wararka idinla socodsiinayay anigoo ah Cabdullaahi Nur Xasan Shiir.